maalmihii ugu dambeeyey ayaan waxaan ku howlanaa si aan cusbitaalka magaalada Ceelbu aan ugu sameeyo waddo markaasi gasha kana baxda magaalada gudaheeda. Magaalada afaafkeeda hore ayaan ka bilaabay waddo ku aadan cusbitaalka magaalada Ceelbu aan isagoo lahayn wax waddo oo loo maro. Maanta oo dhulku raysku iyo raxmaadka la uu jiifo anigoo ku guda jira shaqadaydii oo markaasi ugu helay shaqada oo saakila shaqeeyay Axmed Cawil ayaa waxaan ugu soo booqday goobtii aanu shaqada ka wadnay aniga tiimkayga oo ka mid yahay Axmed Cawil Sheekh Yuusuf Xuseen oo ka mid ah culimada magaalada Ceelbu wuxuuna markaasi uu aad inagu buuriyay si aan u sii wadno waddadaasi geli doonta cusbitaalka magaalada Ceelbu. hadalada Sheekh Yuusuf Xuseenna waxaa ka mid ahaa sida tan: Axmed Cabdillaahi Ciise Cashuur wariye aad iyo aad baad u mahadsantahay wariye mariye Axmed Cabdillaahi Ciise Cashuur waa ku mahadsantihiin waana idinka mahadcelinaynaa waddada aad bilowday adiyo tiimkaagu oo ku socota cusbitaalka oo ah waxyaalaha maaragtay dadweynuhu u baahan yahay waa sadaqad jaari ah qofkii mara iyo gaarigii mara iyo wixii moogtahay cusbitaalka wadda fiican oo ma lahayn insha Allah in iska weynaato oo markii magaaladu ay dhisanto la sii kordhiyo oo jeel la dhigana laba arkay laakiin hadda iska sii bilowdeen iyadoo jid cadda ah wariye waa ku mahadsantihiin waana idinku bogaadinayna waana wax loo baahan yahay waliba noo yeedha oo magaalada iyo ogeysiiya oo anigu hadda waa iska maraayay ogeysiiya maartay haddii aan arkay oo iga waranteena boqolkiiba boqol baan u bogay waana idinka mahadcelinaynaa Allahna ha idin la qabto waliba noo yeedha magaalada ogeysiiyo hal idin la gaarsiiyo waddada cusbitaalka intaas ku soo dhameyn lahaa wassalaamu calaykum waraxmatullah. wakaalada warbaahinta Cashuur Media ayaa ku fakaraysay midooyinkii ugu dambeeyay si ay markaasi waddo toos ah uga gaarsiin lahayd cusbitaalka magaalada Ceelbu. haatana shaqada ay meel fiican ay noo marayso aniga tiimkayga kale ee igala shaqeeya warbaahinta Cashuur Media waa Axmed Cabdillaahi Ciise Axmed Cashuur magaalada Ceelbu ee gobolka Sanaag.